Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waan idin salaamay khiyaarta dhammaantiin saad u dhantihiin meel kastood kala joogtaan dunida daafeed halkaad igala socotaan waa channelka Ladan Cabdo. Fadlan haddii aad u cusub tahay dhegeystow channelka inoo subscribe garee gambaleel kale oon ka dhigo si uu kuu soo gaaro muuqaal kastoo aan soo sheer garayna biidnillaah. Haddii aad nala joogtayna waad ku mahadsan tahay la joogistaada qiimeyntaada quruxda badan. Fadlan commentiga waa ii muhiim waayo waa ii dhiirigelin. Like-ta ha iga iloobin, share-ta ha iga iloobin. Like-ta waxay iga caawinaysaa inuu muuqaalkayga meel sare gaaro. Insha Allah walaalkay ama walaashay igu caawi inaan khayrka faafiyo si uu Ilaahay ajar kaaga siiyo anna ajar iiga siiyo insha Allah. Markasta meeshan waxaan kusoo gudbinaa waxyaabaha faa'iidooyinka u leh aakhiradeena iyo adduunkeena insha Allah. أن كوصل لنا نبينا حبيبنا محمد صلوات الله ربي وسلامه عليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربي آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. waxaan rabaa insha Allah in aan idinla soo wadaago maanta qiso kale oo qiimaheeda wadato. Run ahaantii haddii aad qisadan aad sida ay tahay ama yacni fariimaha aan kuu sheegi doono haddii aad sameyso insha Allah noloshaada waxyaabo badan ayaa iska bedeli doona insha Allah. Qisadeeni ayaan hore usii gudageli doonaa. Qisadana waxa ay ka dhacday dalka Mareykanka. Qisadan waliba waxaa soo gudbiyay oo aniga aan ka maqlay run ahaantii culimadeena Ilaahay cimrigooda ha barakeeyo. Qisadan sheekh ayaa ka waramaya wuxuu dhahay anigoo dalka Mareykanka u joogo safar ama yacni waxaan aaday ayuu dhahay dalka Mareykanka. Waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah anagoo meel wada fadhino oo masaajidka ka soo baxnay yacni meel ayaan wada fadhinay. Nin baa wuxuu igu dhahay wiil walaal ayaa xanuunsanayo yacni gurigiisa meelahan dhow aan soo booqano soo baxayna keen aan faatixadana kusoo aqrinay. Aniga wuxuu dhahay waan isa soo raacnay aniga iyo wiilkii soo wadayba waxaan imaanay gurigii wiilka ayaan guriga ugu tagnay. Qol ayuu iskiga jiraa. Dhabarka ayaa waxaa aga soo baxday buro. Waxay haysaa buradaas kaadida yacni qofka caadi uma kaadin karo. Waxay dhaheen dhaqaatiirtana haddii aan qalliin ku sameyno nolol iyo geeri mid ayaad u dhaxaysaa. Marka waxay dhaheen kaadida waa inaad si yacni isqasabtaa oo si xoog ah oo yacni askiga soo riixdaa daaweynna waan ku siinaynaa. Yacni si xoog yacni qasab ahaan waa inaad kaadida aad kusoo buush gareysaa. Sheekhi wuxuu dhahay ninkii markuu arrintii nooga waramay meeshii gurigiisa waxaan ku dhahnay wiilkii wuxuu u dhiibay tusbax aan watay waxaan dhahay hoo bal tusbaxan qabso salliga nabigana bilow TV-gan aad fiirsanaysid iskada TV ayuu meesha kaliya ayuu TV ayuu meesha iskaga fiirsanayay TV-gan dami waxaad bilowdaa salliga nabiga tusbaxi yara ayaan u dhiibay ayuu dhawaan iskaga soo tagay. Almuhiim ninkii waan kasoo tagnay ayuu dhahay anigii sheekhi waan soo baxnay. Ninkii sidii salliga ayuu tusbaxi aan u dhiibnay salliga ayuu bilaw anaga waan kasoo tagnay ayuu dhahay. Waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah sheekhi oo masaajidka joogo oo weyseysanayo ayaan arkay. Waxaan ku dhahay sheekhow aan ka waran wiilkii maalintii aan u tagayay oo aan tusbaxa siinayay yacni wiilkii aan ku kaxaynay xaaladiisii ka waran yacni siduu yahay war ma ka haysaa ayuu dhahay ma ku laabatay mar kale camal war ma ka haysaa. Markaasaa waxaan ku dhahay yacni waa ka ninkii wiilkii wuxuu joogaa halkaas bal asaga u tagay wareyso xaaladiisa. Aniga wuxuu dhahay waan soo baxay waan u tagay oo waxaan ku dhahay markaa u tagay waxaaba arkayba ninkii markii hore aan kici karin oo sariirtaas iskaga dankiigay oo markuu kacay la qabanayo musqush yacni kaadida ay si xoog leh aga soo baxayso oo la dhahay nolol iyo geeri u dhaxaysa haddii buradan waa laga qalaa la dhaho nolol iyo geeri u dhaxaysa la leeyahay oo waxaan arkay weyseysanay oo halkaas fadhiyo. Waan u tagay ku dhahay waan wareystay wuxuu dhahay walaalkay sidee tahay caafimaadkaaga waxaan ogaay adigoo lagu leeyahay kaadida yacni buush garey oo xoog iskaga soo saar dhaqaatiirtana ay ka qoosteen maxaa yacni caafimaadkan iyo quruxdan intee ka keentay oo yacni sidee ku gaartay nimcadan faraha u badan oo yacni kaliga ayaa weyseysanay musqusha caadi ayuu u kaadinaya. Markaas wuxuu dhahay ma xasuusataa maalintii aad ii dhiibaysay tusbaxa yar oo ay dhahaysay bilow nabiga salliga nabigi Muhammad salawaatullaahi rabbi wasalaamu calayhi ee iska dami TV-ga ma xasuusataa.
haa ayaan ku dhahay. Markaasaa wuxuu dhahay bifadlillaah alxamdulilah, wuxuu dhahay waxaa aqriyey salliga nebiga 50,000 ayuu gaaro dhahay sida aan iskaga aqrinaya. Wuxuu dhahay marna afkayga kamaana joojinin salliga ilaa aniga aan hurdo ama aan dan kale aan leeyo xaajoonayo mooye. wuxuu dhahay marna ma joojinin salliga nebiga sallallahu calayhi wasalam. wuxuu dhahay salligii ayaan waday ilaahay subxaana watacaala wuxuu qadiray buradii meel ay ka baxday inaan garan waayo. ilaahay muxuu qadiray buradii meel ay ka baxday inaan garan waayo. dhaqaatiirtii hataa waxay dhahayn yacni wax aad qabto ma lahan, waa aniga hadii aad ay arkaysa caafimaadka qabo oo kaligayga weysaysan haya musqusha aadayo oona maxaa la dhahayay caafimaadkayga. wuxuu dhahay caadi ayaan u kaadiyaa, caafimaadkaygana waa zaa'id ayuu dhahay. ilaa haddana maan joojinin salliga nebiga ayaan markasta afka ku wadaa, waayo wuxuu dhahay faa'iidada aan ka helay wax ma aha ayuu dhahay inta lagu soo koobi karo, waayo nolol iyo geeri ayaan u dhexeeyay. kaadadana caadi umaan kaadin karin oo buro ayaa dhabarka iga taala. ilaa hadda buradii wuxuu dhahay meelay aadi lama kasaayo. ilaahi subxaana watacaala ayaa mahaddas u sugnaatay. nabigana wuxuu dhahay sallallahu calayhi wasalam saxaabigii uu waati uu ku dhahay haddii aad yacni nabi allow haddii aan kugu salliyo 3 meel haddii aan kugu salliyo oo ducadeeda aan ka dhigo sidee waaye. wuxuu dhahay way fiican tahay, waxaa kasii fiican inaad yacni aad ku koobto salliga aad ka dhigto. adiga markii u dambeysay wuxuu dhahay saxaabigii 3 mar markuu nabiga ku celceliyay, markii u dambeysay wuxuu dhahay ducadeydoo dhan waxaan ka dhigay salligaaga, hadda ayaad liibaantay ayuu dhahay. waxaagoo dhanna dantaadoo dhan ama amuurahaagoo dhanna waxaa kaaga kaafinayo salliga nebi maxamed salawaatullaahi rabbi wasalaamu calayh. haddii aad badiso salliga nebiga sallallahu calayhi wasalam, laa shaka biniya, haddii aad la imaato oo aad waxaad danta aad leedahay aad u niyeysato, aad salliga nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam aad afkaaga aad ka qaadin, ilaahi subxaana watacaala amuurahaaga wuu kuu fududaynayaa. waa bilxaqiiqa taas waa la hubaa insha allah. walaalahayga aan meeshan ku walaalownay dunida daafaheeda kala joogo, waxaan rajaynayaa in aad salliga nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam ugu yaraan maalintii aad ka akhrisaan 1,000 ama 500. haddii aad ka badisana waaba kaba sii qurux badan, waayo salliga nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam halkii mar aad ku sallidaan nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam, ilaahay ee adna 10 mar adna yacni kuu naxariisanaya oo kuu dambi dhaafayo. marka insha allah nabi maxamed sallallahu calayhi wasalam salligiisa maaha mid inta lagu koobi karo. qisooyinka faraha badan oo yacni ku imaadana maaha mid 1 iyo 2 ah. marka insha allah waxaan rajaynaynaa qisooyinkan waan soo badin doonaa faa'iidada uu leeyahay salliga nebiga sallallahu calayhi wasalam. kulligan waan isla ognahay aan isku baraarujino keliya qisooyinkan waxaan usoo qaadanaynaa waxaa waaye waa in aan isku baraarujinaa salliga nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam. qisooyinkan kullina waa qisooyin run ah oo ma ahan wax la iska soo koobi gareys yacni lagu sameynayo maxaa la dhahayay keligaaga maskaxda ay ka keensanaysa maan, waa qisooyin dhaba oo xaqiiqa ah. marka insha allah annagana aan ka faa'iidno, keliya maha inaan dhegeysano oo aan iskaga sii tagno, waa inaan camalka qabanaa oo aan ku sallinaa nabigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. nabi maxamed sallallahu calayhi wasalam wuxuu dhahay waxaa u ballan qaaday ninkii maalintii 1,000 mar igu salliyo in uusan naar galaynin. marka maxaa inoo diidaya in aan suubanaheena oon maxaa la dhahayay aan ku sallino ugu yaraan maalintii 10 mar xataa ku salli oo xasuuso. halkii mar aad ku sallidaa magacaaga ayaa loo geynayaa nabi maxamed sallallahu calayhi wasalam, oo waxaa lagu dhahayaa hebel ayaa kugu soo salliyey ama heblaayo ayaa kugu soo sallisay. ka waran nabi maxamed sallallahu calayhi wasalam haddii aad maalintii 10 mar ama 5 mar kaba soo qaad maalintii dhan haddii aad 1,000 mar ku sallido, 1,000kaas mar nabi maxamed sallallahu calayhi wasalam malig ayaa xaadir ah yacni qaadaya oo leh nabi allow qofkaas ayaa kugu salliyey. ka waran 1,000 mar haddii magacaaga nebiga ka waran magacaaga 10 mar ama 1,000 mar loo sheegay oo laleeyahay hebel ayaa kugu salliyey, hebel ayaa kugu salliyey. ka waran nimcada ma dareemi kartid, waayo waa salliga nebiga waxaa haleelo qof nasiib leh, qof ilaahay xaqa waafajiyey. la wadaag walaalahaaga kalena qisooyinka quruxda badan aan soo gudbino in ay yacni gaarto oo laygtaa ka iloowin, u sheer garee si ayagana uga faa'iidaystaan oo ay u bilaabaan salliga nebiga. qisooyinka xawqalada, qisooyinka istikfaarta, qisooyinka ku imaatay albaqra, wax la koobi kara ma ahan. insha allah waxaan rajaynayaa in aan idin soo gudbiyo, ilaahay anigana ha ii fududeeyo dhammaanteennaba kuwii xaqa isku dardaarmay oo xaqa ku heshiiyey oo xaqa ku midoobay, ilaahay ha naga dhigo. waxaan idinka tegayaa qisooyinkan qisooyin la mid ah tan iyo kulanto dambe.
wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala